إلا حكومة 4 سنة إلا 6 سنة قلب كاسة سلا سكر شرعها لو وفتيان كان قبلنا الناس لا قبلها يقول المدة هي لا يقول قبلها وورك وحنا يبقى marka wuxuu ka harilay fircooni oo ilaa fircoon barnaamijkan ka harilay waa rag waxna ku qasbayeen waa rag naagu waxna ku qasbi diiday sabta haweeney gabadhina li bukra laga odaguna gabadha hal guus anu waxaan u arkaa laba qodob bas in xal loo keenay waa mid culimada diinka shariicada islaamka xambaarsan in ay sakaga gabadh oo aysan arrinta si fudud u gelin oo markii saaraf ama isku yimaado intay tababarka qaataan aysan dantooda iska qabsan oo ay faafiyaan masaajidda ka sheegaan madaarista ku dhigaan ay dhammaan culimada ama tababarka ka qayb galeen ama kuwa ka qayb galeen hadaba culimada awood ka timi ilaa ayaga shariicadii haya iyaga yaqaan dadkaana dhaqan ahaan arrintan in diinta ka diinta qaba ka asal ka soo gaaray in arrinta diinta qabin culimada in horta juhud badan geliso qodobka labaad showko xukuumad sida sharciyada hadda loo qoro kala tabaqada oo qaab dawladeed ku dabaqada iyo awood iyana in la helo labadaas uu ku suuli karaa ama ku yaran karaa waxaan leeyahay wuxuu ka dhaqan gal leeyahay culimada diinka Soomaaliya hay'ad wada aragnay ay gelin dawladda ka socoto waa gobolada maamulka ka socoto aragnay laakiin culimada diin istaago oo degmooyinka istaaga oo ay gelin ka sameeyo oo iskood isu xilqaamo wali lama haddii aan taas helin ma dhaqan galay hadda taas aan leeyahay culimada xaggooda ka dhaqan galay waxa dhaqsan lagu aftari karo ma culimada laga qeybin karo mar walba waa laga hadlay anigu marka waxaan leeyahay wacyigelin tuulooyinka iyo dadka oo reer miyiga laga soo qaybgelinaya tareerino in la sameeyo magaalada sidii loo soo hadda warbixinta ay u qaataan oo bulshada maanta intaan ku nool haddana markaan meeshaan ka dareerno warbixintii magaalada way gelaysaa in fara badan waxaa ka qabsoomay inta marka naga maqan oo hadda ku jiro adag tahayna sidii ay ku gaarto arrintan kuna dhagan dhaqankii qalafsanaa aan ku soo dhaqmayno muddada dheer waxay u baahan yihiin ayagana wacyigelin iyo tareerinada laga soo qaybgeliyo muddo hadda 3 bari laga joogo gabar 6 sano jirta waxaa lagu sameeyey ninka fircooni oo qansaxlay looga sameeyey 7 bari markay dhiig baxayso yaa anigoo socda aan la kulmay gabar baan ka dhiig baxay gabadhii indhii cadayso indhii rogtay yaa kor istaagay aan soo wacay hay'adda siido waxay markaan joogan sidii waayaan ku celiyo waxay dheen gaari baan raadinayna haddana hay'adda la dhahaa sakuuro soo wacay sakuura soo hormartay gabadhii gaariga saaraysa hay'adda kale soo istaagtay maasla soo qaadnay isbitaalka turkiga muddo 4 saacadood ama 5 saacadood gabadha gudaheeda la tolay dhaawacyo loo geystay meel aawan xataa aan kintir iyo goyntiisaba aan ahayn ay midii ay gelisay islaamka ay la hadlayso maadaama uu dhibkina haysto marka naar loo galahayo oo uu socdo uu sanaga harayno ka dawlad ahaan Jubaland nooga imaatay sidee baan annaga dhibkaas ooga bixi karnaa ilaa tii shalay la soo qabtay ee la keenay yaaban wax laga qabanin dhibaatadiina wali way haysataa sharcigan hadda la keenayna wuxuu rabaa inuu muddo soo jiitamo oo uu soo socdo oo uu soo kaabgalo maba sugi karnaba inta uu sharciga soo gaarsamay wax soo xadima oo inta sharciga laga keenayo naga sii xakameey yaa waxaan ii lahaa aniga fikirkeyga markii aan islaahay sideen u xakameyn karaa wadaadkii yidhi culimo awdiinka ka jiifa arrinta ayadaa anigu waa la qabaa fikriga asaga laakiin awood dawladeed waa loo baahan yahay sharci xakameeya hawshan oo culimadii Soomaaliyeed heer kasta oo yihiinba ay wadaan u daacad yihiin u taagan yihiin heer tuulo heer degmo heer gobol heer caasimadeed bay u taagan yihiin waa laga rabaa labadaas awoodood oo midna ay culimadii tahay midna ay tahay muxuu ahaayey dawladii iyo hay'adihii gargaarka oo ayaguna samafalka sida hadda aniga ay noogu wadaan ku caawiyo saddexdaas qaybood hadday iskugu imaadaan
إن حل هذه لهذا الأدب برضه waxay علماء الدين أصابوا قالوا waxay هبل أصابوا وحاول هوان waxay u sababtaan ku sheegaya aniga gabadhayda hadaan qaadin oo malaag muddo u geeyay ama hal saci aan ciidamo qaadi karto wadaadka mikrofon haduu qaato si jinka wax u dhaafay ka xawaa ilaahay ku baraka dadku sheeg loo sheegay ma ilmaha dhaxdooda gal xawaa wax kama jira ilmaha udii waxba ma qaban ilaa haween xawaageed aniga canugayga ana ka warqabo hadii waxa laga safar iska jiro intaas oo sar abaan isariga oo carruurta baray xawaa aniga baa gudi aniga baa naagtu ugu yeeray هديك بحنا ما كعبة حنا قلنا مجرم واي واسردي جسدي حدد بحن إيه وعي قلنا ترى بدن وباي نطلع علماء المبى كل هذا وحول لها إلى هاي أنا وحاطة وين يسحبك كتير لو أتنصر كور يعني أنا مركي متغنى أنا كتابة باللونين أرجلي يعني حنا قد يارني أيضا عد متغنى نظام الدولة ده وصل عربي كتير وعربي فوضية يعني أنا كهذا ما يحصل إني كفرعون يسدي سوا حرام إلا جرجر قبل يجر كذا أو أنت ما تقعنا المقص اللي جشوا حين والبلا جرا حكر لازم يوكلنا لنا يحقوق بيده كامل يحتاج لازم يسوي haddii dawga dhaqanka oo dhan haduu ka tago toona magteeda waa lagu leeyahay islaamta ma taana fikis kiisa way qaaxa kitaab عادي قاحة ويكاد ولمدة المدة بدل ما يكاد الشيء ويقاح ذي ويكاد الشيء ويكاد الشيء ويكاد إن بدل ما وعي يجري كسر المساجد إنه كل استغنى حتى خرافنا أنت قاعد إن ما الله جماعة ينو كهذا اللي هنو كو إلا هرو نظام أود له وقضب كوبان قضب كلامات وعي جريت